Asalaamu calaykum kusoo dhawaada warbixinada iyo wararka Bulsho Media. Waxyaabaha aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah diyaarad dagaal oo maanta laga soo riday ciidamada Israa'iil. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo cambaareeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Kumanaan shacab ah ayaa ka qaxaya Gaza. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kala socon doontaan Bulsho Media. Fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe siina, share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina. Diyaar dagaal ayaa maanta laga soo riday ciidamada Israa'iil. Ciidanka Israa'iil ayaa maanta waxaa laga soo riday diyaarad dagaal ee nooceedu yahay helicopter, waxayna isku dayeysay in ay dulmarto Gaza, halkaasi oo ururka Xamaas ay si aad ugu xoogan yihiin. Waxaan la sheegay in ay saarnaayeen diyaaradda ku dhawaada 50 askari oo Israa'iili ah. Ilaa haatan lama sheegin khasaaraha soo gaaray ciidamada diyaaraddaasi saarnaa. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii laga soo tago wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka inuu yahay nin Yahuudi ah oo aanan ogolaan doonin dhibaatada lagu hayo dadka Yahuudda, waxaana uu tilmaamay in mar walba ay garab taagan yihiin maamulka Yahuudda. Madaxweynaha Turkiga ayaa su'aal geliyay maxay sameyn lahaayeen haddii aan inta diyaaradda qaato oo aan ka dego Gaza oo aan dhaho waxaan ahay nin Muslin ah oo mana dulqaadan karo dhibaatada lagu hayo shacabka reer Falastiin. Warbaahinta reer galbeedka waxay buunbuunin lahaayeen hadallada meesha ka soo jeediyay, waxayna dhihi lahaayeen Erdogan waxa uu sameeyay kicin oo dagaalka ayuu hurinayaa. Haddii aan meeshaasi aan ku dhaafno qodobka, madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay ficilada uu ku kacay wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka markii uu booqasho ku tagay magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil. Kumanaan shacab ayaa ka qaxaya dagaalka Gaza. Gaza waxaa maalintii 8aad ka socda dagaalo iyo duqeymo xooggan oo u dhexeeya ciidamada ururka Xamaas iyo ciidamada Israa'iil. Dagaalkaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac soo kala gaaray. Yahuudda ayaa sheegtay in weerar dhanka dhulka, cirka iyo badda ay ku qaadi doonto marinka Gaza oo ay tahay meel ay ku dhuuntaan ururka Xamaas. Yahuudda ayaa dhowr jeer looga digay in ay joojiso gumaadka ay ku hayso shacabka reer Falastiin, waxaana haatan loo geystay xasuuq ba'an oo ay kala kulmeen ururka Xamaas. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo safar ku maraya dalalka gobolka, ujeedkiisuna waxa uu yahay sidii loo rari lahaa shacabka Falastiiniyiinta ee ku sugan goobaha Israa'iil ay doonayso inay weeraro xooggan ay ka geysato. Antony Blinken ayaa safar ku maraya dalalka gobolka, ujeedkiisuna waxa uu yahay sidii shacabka reer Falastiin ee ku sugan goobaha dagaalada sidii loo rari lahaa oo meelo kale loo geyn lahaa, taasi oo dhammaan dalalka Carabta ee booqday ay ka diideen in arrintaasi ay sameeyaan, taasi oo shacabka reer Falastiin u horseedi karta qax iyo dhibaatooyin horleh ee ay kala kulmaan Israa'iil. Antony waxa uu doonayaa dalalka Carabta in ay daawadaan xasuuqa loo geysanayo shacabka walaalahooda ee reer Falastiin ee aanay wax gargaara u sameynin shacabka reer Falastiin. Shacabka Carabta ayaa si gaar ah waxay ula socdaan xaaladihii ugu dambeeyay ee ka socda dalkaasi Falastiin ee xasuuq ba'an loogu geysanayo walaalahooda reer Falastiin, walow dowladaha Carabta qaarkood ay ka hadleen inkastoo aanan jirin dowladda ficil sameysay muddada uu xasuuqa u socdo. Guud ahaan waa naga intaa warbixinadii ugu dambeeyay ee xaaladaha marinka Gaza. Mar walba kala soco wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay. Fadlan haddaad ku cusub tahay Bulsho Media, like noo saar, subscribe siina, share gareysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina.